وراد يا بان دي سلام الناس أصحابي ميل والبات شفتهم حدير رجيني خير بان دير رجينا إن ماشي أنا قد أقول نسوي يوتيوب كي فهد يداود وحنا رجينا إن نقول عاوزان شير سبسكرايب يلا لايك طبعا وحنا وحكون هاي وإيدين قدرتينا إن هل كان وحنا تقول هيا ولكن فيها شاكر وضد بدن بشرا فريمة بدن يسوي ديان ولو تريق مراكن كوسا بسن إن ولكن كوسو لو بقولنا إن وضحت إن داود برعوي dadkan waxaa la asxaabta ba in youtube channelkan waa youtube cusub oo ah daawud iyo fahad runtiina waxaa filayna wax badan aad kala duwan oo ah comedy waxyaabo badan oo funny iyo waxyaabo kale oo warbixin ah oo tiro badan oo la xiriira dadka qurbaha jooga iyo waxyaabo kale oo ka qosmin doona insha Allah daawud braawi uu jooga ها ولكن waxaan ku bilaaweynaa loo tiriga Mareykanka horta imsa qof ayuu u baahan yahay ama qaadanaya daawud oo sanadkan wuxuu sheegay inuu qaadanayo 55,000 oo shaqaale ah oo sanadkan marka waxyaabaha sanadkan fiican waxa kamid ah xasaasiga waxa laga reebay wadamadii ugu badnaa ee xarisan jiray loo tiriga ee wadadiyowga badan ahaa sida China, India, Mexico, waddanka Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Colombia, Gambia dadka noocaas oo fara badan ba sanadkan ku jirin marka waxa la moodaa sanadkan dadka Afrikaanta ah dadka bariga dhexda inay chance fiican leeyihiin walaalkii su'aasha labaad aan ku weydiin lahaa waxa weeye qofka hadduu sanadkii hore kala xariistay ma dhici kartaa inuu sanadkan xariisto qofku hadduu qaxay sanadkii hore kii ka soo horeeyay kii ka soo horeeyay muddo ugu dambeeyay uu xariisan karaa oo hadda laftigeeda doono dhowr xariistay way jiraan dadkeena ah oo agda ugu dambeeyna way heleen kuma xidhna markaa okay markaa walaal waxaad noo sheegtay oo kale qofka haddaan baasaboor haysan oo kale ma xariisan karaa qofka hadduu baasaboor markuu hore qofka baasaboorka muhiim buu ahaa laakiin sanadka waxyaabaha daawadu ay soo kordhin update-ka waxa kamid ah qofka hadduuna aanu baasaboor haysan inuu xariisan karay okay wad fahanteen baan u malaynayaa marka dad badan baa jiro waxaa doonaya inay xariistaan ilaa 5 tole waxay ku dhiban yihiin qaybta sawirka markaas bal wixii tala maxaa sawirka ugu dari lahay sawirka daawadu ma taqarsawirka la gelayo horta waxay u baahan yihiin sawir lagu qaaday kamarad aha noqdo telefoon dadka telefoon ku qaadana dad professional weyn furo ku qaado marka mid tahay qofka inay ishiisa indhihiisa ma taqaana maxay dhahalka buuda isha wiilka inay muuqdaan iyo sidoo kale qofka inay muuqanayaan sunniyahaas taasi ugu socdaan xagga dumarka qaawanaantu muhiim ah qaawanaantu muhiim badan maaha muhiimadu waa sunniyaha iyo indhaha iyo qofka inaan waxba ka dambeyn kale waxba laga dadso qofka waxba ka dambeyn wada wixii kale mid kale website laftigiisa baa ku diidayba hadda sawir khaldan wuxuu ku tusayaa casaan ama red ama guduud waad fahanteen baan u malaynayaa kulley fariimahaasna dad badan baa sugaya fariimaha noocaas wax uga faa'iideeya oo ka siiya tafaasiir hadalladan iyo hadallo kale oo fiican walaalkii Fahad Shaakir waa inoo jooga waxa jira qaabab badan oo la doonayo inaad nooga faa'iideysaan walaalkii ma inooga faa'iideeyay waa insha Allah waxyaabo badan oo soo wada wala kanigu waxa ila jooga comedianka rigeeda ahaa daawud waxyaabo badan buu ka sheekeeyay waa nin runtii meel TikTok oo dhan waxyaabo badan ku soo kordhay marka waa soo wada waxyaabo fara badan insha Allah subscribe ka saara YouTube inaad lala joogtaan YouTube-ka Fahad iyo Daawud balantino waa xagee Mareykan balantino waa Mareykan iyo loo tiriga Mareykan